Saro waa wiil yar oo Hindi ah. Arrin ayaa qabsatay marka uu jiray 4 sano. Wuxuu la noolaa faamilkiisa iyaga oo ku noolaayeen tuulo yar oo ka mid ah tuulooyinka India. Hooyadiis waxay ahayd mid markasta iska oynaysa sababtoo ah nolosha ayaa ku adkeyd. Maalin waxa uu raacay walaalkiis ka weyn ee Jodo si ay u raacaan tareen sababtoo ah waxay haysteen lacag yar. Walaalkiis ayaa ku yidhi halkan igu sug waan ku soo laabanayaa. Saro soo halkii u fadhiyay wuu hurday. Markuu ka soo kacay wuxuu u arkay in uu keligii joogo busteejada tareenka mana garanayo halka uu joogo. Saro ma ahayn mid garanayo qorista, akhriska iyo xisaabaadkaba. Sidoo kale ma garanayo magaaladiisa magaceeda iyo halkay ku taalo xitaa magaca qoyskooda. Sidaas darteed ma jirto arrin faamilkiisa loola haleeli karo. Waqti yar kadib dadka ayaa arkeen wiil yar oo hooy la'aan wadada iskaga jooga kaa oo ku dhibaataysan. Waxaana markaasi la wareegay kuwa ilmaha xanaaneeya. Qoys Australian ah ayaa watay kuwa oo u rogay noloshiisa dhinac kale taa oo ka fog dhibaato iyo walwal sidoo kalena ka fog wax walba uu garanayay khaasatan hooyadii iyo aabihii oo aad u jeclaa labadoodaba. Intii lagu guda jiray waqtigaas hooyadiisna waxay ahayd mid ka raadinaysa meel walba wiilkeeda si kasta oo ay u raadiso ma aysan helin wax aan ilin ahayn micnaha in ay oysa mooyee. Waxaa macquul ahayd in ay qisadu halkan ku dhammaato laakiin ma aha wax walba sidan. Hooyadii wadatay Saro waxay guriga qolkiisa ugu dhajisay qariirada India si uu ugu garto halka uu ka imaaday. Markasta waxa uu hurdi jiray asiga oo hortaalo qariidada dalkiisa. Markasta waxa uu isweydiin jiray aaway qoyskaagii maxaa ku dhacay. Markuu dhalinyaro noqday uu in badan raadinayay wuxuu bilaabay in uu ka raadiyo markaan aaladda loo yaqaano Google-ka. Taasina waxay ahayd rajadiisii ugu dambeysay. Maalmo badan kadib waxa uu ku raagay in uu baaro waxyaabaha ku saabsan Kandiwa si uu u arko wax uu yaqaano. Maalin maalmaha ka mid ah waxaa dhacday arrin la yaab leh. Wuxuu arkay jasiirad u dhoweyd warshadaas oo ku agtaalay dhinaca webiga. waa halkan meesha uu walaalkayga iga tagay. Markaasuu wax walba fahmay. Janish Talai waa magaca magaaladeeda. Saro wuxuu soo aaday Hindiya wuxuuna soo raacay tareenkii geen lahaa tuuladii oo ku dhashay. Saro waxa uu bilaabay in uu oynayo sababtoo markuu soo xasuusto waxyaabihii oo soo maray. Markuu ku soo dhowaaday albaabka gurigii oo ku dhashay niyadiisa ayuu wuxuu iska weydiinayay ma i garan doonaan qoyskayga. Guriga hortiisa waxaa fadhiyay 3 dumar ah. Naagta dhexda ku jirta ayaa soo kacday xaggiisa ayay u soo dhawaatay kadib waa isku duubtay waxayna si degdeg u garatay in uu wiilkeedii yahay ka oo ka maqnaay muddo 25 sano ah. Waxay ahayd hooyadii. Saro wuu rumaysan waayay sanado badan uu raadinayay kadib wuxuu u soo laabtay faamilkiisa. Saro aad buu u faraxsanaa sababtoo ah wuxuu helay faamilkiisii oo aad u jeclaa. Subxaanallah, hooyadu waxay oynaysay 25 sano laakiin ugu dambeyn qalbigii murugaysnaa waxa u soo laabtay farxadiisii sababtoo ah wiilkeedii ayaa u soo laabtay.